haddaan xaaladda guud idinkaga warramo coronavirus meeshuu marayo waddanka maanta ay tahay taariikhda 6 bisha May 2020 waxaa soo kordhay 38 xaaladood oo ah coronavirus positive waxaa rag ah 30 sideedna waa haween dumar meelaha uu laga helay nambaradan cusub waxa waaye Banaadir oo ah 35 iyo Somaliland oo 3 da'da dadka laga helay waxay u dhaxaysaa inta ka yar 20 sano waa 3% 20 ilaa 39 waxa waaye 54%, 40 ilaa 59 waxa waaye 31%, 60 sano iyo ka weyna waxa waaye ilaa 12 sano 12% raalli ahaad tirada guud ee dadka laga helay guud ahaan dadkeena Soomaaliya halkeena waa 873 xanuunka waxaa u geeriyooday 24 saacadood ugu dambeysay Ilaahay ha u naxariisto hal qof oo la xaqiijiyay tirada guud ee dhimashada waxay noqonaysaa 39 Ilaahay ha u naxariisto waxaa ka bogsooday 12 qofood tirada guud ee bogsootayna waxay isugu tagaysaa 87 mar kale ka hortagga wuxuu ka fiican yahay daaweynta waxaa waajib nagu ah bulshada qaybaheeda kala duwan oo dhan qof walba inuu ka qayb qaato cudurkan sida loo xakameyn lahaa waa la sheegay qofka inuu is dhowro inuusan ka bixin xaafadiisa haddii aysan muhiim ahayn in ma aragtay nadaafadda uu ku dadaalo in gacmo dhaqashada saabuunta iyo alcohol iyo wixii loogu talagalay in lagu nadiifiyo ilaa iyo ugu yaraan 20 second in ma aragtay qofka markuu arko calaamadihii cudurka haddii uu isaga shakiyo inuu wacdo nambarada loogu talagalay freega inuu wacdo si dhaqaatiir meesha joogta ay u siin lahayd wacyigelin loo siin lahaa talo sidoo u raadsan lahaa inuu test sameeyo loo jihayn lahaa guud ahaan waxaa nagu waajib ah inaan nafteenana xakamayno ka ilaalina cudurka dadka aan jecelno oo ehelka iyo saaxiibada iyo bulshada inteeda kalena aan ka ilaalino waa waajibna wada saaran waxaan ku dardaarmaynaa mar walba ku celcelinaynaa in cudurkan ka hortagiisa uu yahay waajibna wada saaran in la dhageysto culimada in la dhageysto khubarada caafimaadka wasaaradda caafimaadka tilmaamaha ay bixinayaan mar walba lagu dhaqmo in laga hortago inuu faafo cudurka waxaa jira hadda number badan oo la leeyahay waxay u dhinteen cudurka oo aanan laga xaqiijinin waxaa jira dad badan oo u xanuunsan waxaan ka codsanaynaa walaaleen hadday isaga shakiyaan xanuunka ay qabaan inay dhakhtar raadsadaan oo aysan qarsanin xanuunka haddaad qarsato dadkii agtaada joogayna waad u qarinaysaa cudurka waxaad ka dhigaysaa wax aan la kala qaadin oo ay tahay sahal in la isla joogo taasna ma aha siyaasadda guud siyaasadda dawladda waxa waaye cudurkan inuusan qofna nooga dhiman inaan ku dadaalno insha Allahu tacaala qadarka Ilaaha haya laakiin bani aadam haddaan nahay dawladda waxaa saaran waajib inay dadkeeda ka fikirto in caafimaadkeeda ay ka fikirto inay wacyigelin siiso iyo in xaaladaha soo kordhay xanuunka markuu soo kacay wax allaale wixii ay awoodo isugu geyso ay diyaariso isbitaallo ay diyaariso qalab sida loo diyaariyay isbitaallada Martiini hadda Banaadir lagu wado qalabadii la keenay walaalaheen Turkida iyo dadkii kale noo soo gurmaday oo qaarkood alaabta inteeda badan maamul goboleedyada loo qaybiyay waxaan diyaar u nahay mar walba inaan idin kala shaqeyno wax allaale wixii macquul ah oo dawladda awoodeeda ah sidii cudurkan loo xakameyn lahaa waa mahadsantiin